xisbiga isbedel doonka ee wadani ayaa maanta guud ahaanba la wareegay xarinta guud ee xisbiga kulmiye ku lahaa gudaha magaalada Laascanood. xaruntaas ayaa saaka waxa laga tirtiray magacii xisbiga kulmiye iyo astaanta calanka ee xisbigaasi. xaruntan ayaa waxa hanti lahaan u lahayd Marwo Carfi Jaamac oo dhawaan shaacisay inay guud ahaanba ka digarogotay xisbiga talada dalka ee kulmiye kadib markii ay salugtay siyaasadiisa una digarogotay xisbiga mucaaradka ee wadani. waxaana saaka iyadoo shaqada xafiiskaasi la wado shir jaraa'id ku qabtay mas'uuliyiin ka socday xisbiga wadani iyo maayirka hore ee degmada Laascanood Cismaan Salebaan Jaamac. sidoo markaasaan maanta waxaan la wareegnay xaruntii u dambeysay xaruntii guud ee xisbiga kulmiye waa xaruntii afraad ee gacanta wadani ku soo wareegtay dadka xaafadda degan markay arkeen nooc ay u dhaqmayaan iyo inay ka xun yihiin isticmaalkii ayay dadku guryahoodiina ka saarayaan iskuna soo dhaweynayaan xisbiga isbedel doonka wadani. waad aragtaan maanta kama duwanaa xilligii calankii ingiriiska ee la rogayay isticmaalka ka nasaarta ahaa xisbigii kulmiye kirooyinkii waa haleeli waayay inuu iska bixiyo iska daa wax kaloo cid soo jiidan karayaana ma jirto. waxaanu taagannahay xafiiska xisbiga lahaan jiray ee dabaqa Carfi Jaamac iyadoo saaka oo bishu tahay 9kii bishii 10aad 2017 aan la wareegnay haddaanu nahay xisbiga wadani. waxaad arkaysaa iyadoo saaka ay ka dhacayso runtiga laga tirtirayo kii kale lagu boofinayo. saaka waad aragtaan xafiiskii dhufaysku u dambeeyay xisbiga kulmiye xaruntii guud ee xisbiga kulmiye gobolka dhufaysku u dambeeyay baanu saaka qabsanay. xafiiska waanu la wareegnay. waxaanu saaka la wareegnay 3 xafiis hore waa kii afraad kii garabka haweenka kii garabka dhalinyarada iyo kii garabka muxuu ahaa isboortiga dhalinyarada iyo kii guud baan hadir taaganahay reer Sool iyo reer Somaliland iyo reer wadaniba indhahooda u macalina. sidoo kale waxay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascanood ay kulan ku qaabileen odayaal iyo cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda xaafadda koonfureed ee magaalada Laascanood. odayaashaas oo shaaciyeen si rasmi ah ugu biireen xisbiga mucaaradka ee wadani. walaalahayaga xisbiga wadani ee soo booqday xafiiskan maanta nagu soo booqday aad u mahadsan yihiin. waxaan maanta halkan ka cadaynaynaa dadka reer Sool inay u soo jeesteen danahooda taageersan yihiin xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee wadani ayna ka faraxalanayaan oo ka jeesteen xisbiga kulmiye ee siyaasadiisu ay hadeer dhanqalanka tahay. waxaa weeye anagu waxaanu nahay dhalinyarada ku dhaqan xaafadda koonfureed waxaanu nahay dad wadaniyaysan taageersan xisbigana soo dhaweynaya waxaanu la dagaalamanaa oo aanu ka hor imaananaa xisbiga kulmiye ee talada haya. waxaanu taageersanahay xisbiga wadani uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro madaxweynaha mustaqbalka. afartii uu ballan qaaday baanu ku taageernay annagoo dhalinyarada afartaas oo ah caafimaad nabadgelyo horumar iyo nabad waarta oo dalka dhan lagu soo dabaalo. waana taageersanahay dhammaan xisbiga wadani waana garab taaganahay waana ridaynaa. haddii aanu nahay gobolka Sool waxaanu odaynaynaa ama aan doonaynaa waxa weeyaan waa wadani waayo waxaa weli naga sii muuqda raadadkii iyo dhibaatadii iyo duulaankii iyo isku diibkii iyo siyaasadii foosha xumeed ee qaawaleyd ninkii la odhan jiray kulmiye. dadka kale waxa weeyaan wadani ah ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in wadanina uu nooga dhigo mid naga maydha qaradii kulmiye. waxa weeyaan gobolka Sool waxaanu isku ognahay gobolka Sool waxaan isku ognahay in aynu doorano in wadani doorano waayo waxa weeye dadku wuxuu u baahan yahay nolol wuxuu u baahan yahay biyo wuxuu u baahan yahay caafimaad wuxuu u baahan yahay waxbarasho wuxuu u baahan yahay nabadgelyo waxyaabo badan ayaa dadku u baahan yahay magaalada Samiir Saciid Bala Bulsha TV Laascanood.